بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland waxaan caawa doonayaa inaan halkan kaga hadlo fariin kale oo aad iyo aad u muhiim ah fariinta kale ee muhiimka waxa ay khusaysaa laba qodob oo maanta waddankeena ka jira labada qodob waxa weeye waa qabyaaladda iyo kala talisnimada labadiiba maanta waddankeena iyagoo israacsan oo meel qura ka imanaya ay labadiiba maanta waddankeena ka jiraan waayaragnimadeena taariikheedna waxa ku kaydsan labada waxyaabood oo israacay inay yihiin waxyaabihii qarankii Soomaaliyeed burburiyay ee Soomaaliland maanta ku kala maqan tahay ee Soomaaliland maanta isku aamini laadahay in labada qodob oo kaliya ahaayeen uguna muhiimsanaayeen uguna weynaayeen waxyaabihii ummadda Soomaaliyeed kala yardeeyay hadaba labadiiba maanta caawa waxay ka jiraan Somaliland labadiibana waxay ka imanayaan cidda maamulka joogtay dadku maamulka u yaqaanaan haddaan ku horeeyo qabyaaladdu awal hore waxay naqaanay inay ka timaado ama dad miyiga iska jooga iska raacatada ama dadyoga suuqa iska jooga caadiga iyo ordinary-ga maanta laakiin qabyaaladii waxay ka imanaysaa oo dhaqaale ku bixinaya oo dadkii kala erdeynaya oo waxyaabihii dadku kala tegayeen waxyaabihii tensionka abuurayay sameynaya ciddii xaggii sare ka imanaya ama ciddii maamulka sheeganaysa markaas qofka Soomaaliga ana gabigiisu Soomaalida gabigeedu waa madax iskula gashay ma Soomaaliland madax iskula jirtaan waxa weeye waa qabyaalad iyo iyadoo qabiil wax lagu duudsiyay cid ama lagu takooro ama xuquuqda leedahay laga qaado Soomaaliland waligeed beentaas isugu marinaysa qodobka labaadna waxa weeye waa kala talisnimada marka horta intaan qodobka kala talisnimada u gelin qabyaaladdu sida ay uga imanayso maamulka sare ama cidda maanta xukunka joogta ayaan doonaya inaan yara iftiimiyo nidaamka meeshan uu ku dhisan yahay baynu ognahay inuu qaab qabyaaladeed ku yimi maadaama qaab qabyaaladeed ku yimina in qaabkii qabyaaladeed ku yimi xuquuqdii muwaadiniinta dadka dastuurka siiyay in lagu soo koobay dadka in gaar ah oo dowladnimadii ay damaca inay dadka ka sheegtaan ama ka xiisadaan oo taasna uu fulinteeda nidaamka meesha jooga qayb aad iyo aad u weyn ka yahay uu yahayna cidda hawsha dhiirigelinaysa falkinaysa waxaana taa laga arki karaa dhammaan hay'adaha dowladda shaqaalaysiinta qandaraasyada iyo wax kastoo la halmaala waxa kaloo intaan kaloo ka arki karanaa shakhsiyaadka xorriyaddooda isticmaalaya ama hadlaya oo qaab qabiiliya loo beegsanayo waynu ognahay maanta in abwaanadii culimadii samafalayaashii iyo intaasiba ay qaarna xabsiyada ku jiraan qaarna ay waddankaba ka yaaceen oo ay naftooda kala carareen markay ogaadeen inaan sharci difaacayaana jirin maxkamad difaacaysaana jirin urur saxaafadeed iyo urur xuquuqeed oo kaloo difaacayaana aanu jirin waxaa kaloo iyadna aad iyo aad u muhiim inay dul istaagno waxaa loo yaqaana kala talisnimada dadku kala talisnimada inta badan waxay u yaqaanaan inay kala talisnimadu ku timaado qof meel inqilaab ku qabsaday oo xoog ku qabsaday laakiin kala talisnimadu siyaabo fara badan bay u timaadaa dadka waxaa jira dunida soo maray kala talisyo doorashooyinkii oo indeer baa ka mid ahaa iyo qaar kaloo fara badan ama wax doorasho weegoo doorasho dadka loogu dhigay laakiin aan doorasho ahayn hadiya gooraalana kala talisku waxa weeye si dadku kala taliska u fahmaan wuxuu yahay kala talisku waa qofka oo aan sharcigii ummadda u dhaxeeyay aan ku dhaqmin oo aan fulinin damiciisa fuliya sida markaana wax kastoo isagu u arkayo iyo damiciisa iyo dantiisa tahay iyo sharcigii xakaminayay ka tallaabsada dabadeed awoodii u isticmaala damiciisa oo kaliya ninka waxaynu ognahay Somaliland ninka meesha jooga in uu damiciisii u isticmaalay boolistiisu isticmaalay awoodii gacantiisa soo gashay taas dad fara badan oo ay qolaysanayay ama qof erey maali yiri ama qof wax ka qoray waxaa kaloo jirta inuu business geliyay oo uu awoodii hab ganacsi u adeegsaday ama hanti boob oo kale ama hanti urursi waxa loo yaqaan waxaan ognahay intaas oo qoys oo adeegsan maanta dhul qoyskaas meesha jooga ama ninka meesha jooga ay isku haystaan waxyaaba cajiibka waxaa ka mid ah marka aynu maqalno waxaa ka mid ah dad dhulkoodii xaraf oo kale dad dhulkoodii lagu qabsaday oo dabeeta ka soo bixi waayay dabeeta markii loo sheegay lagu yidhi dadkii way ka soo bixi waayeen guriyii yidhi goodoomiya markay biyo bariis waayaan iyaga ka soo yaaci dooneen waxaa kaloo aynu ognahay hadallada cunsuriyadda ah ee axadka meesha jooga uu adeegsaday
aadkii aadka u faraha badan leh maalin walba soo noqnoqonaya bulshada iyo ummadaba aadkii aad u kala kaxaynaya isla markaana siyaasadeenniiba ay iyo dowladnimadeenniiba ay ku soo ururtay doonista kooxda meesha joogta waxaa kaloo kala talisnimada kale ka jirta waxaa ka mid ah in wax kasta oo ay bulshada kusii kala fogaanayso wax kasta oo aad moodo inay cariigsi bulshada ku tahay in uu ka soo fulayo nidaamkaas oo ficil ahaan uga soo fulayo isla markaana aanu dhagaysanaynin rabitaanka dadka doodaha ay dadku aayahooda kaga doodayaan ama xuquuqdooda ugu doodayaan ama ay sharciga ku ilaashanayaan waxaas oo dhanba in la colaysanayo oo fikirkii iyo dheergaradkiina la colaysanayo deetayaguna noqdeen badh aamusa badh la shaqaysta iyo badh waddankii uga yaacay marka mushkiladda inagu soo wajahday aad iyo aad bay u khatar badan tahay cidda aan taa ku baraarugsanayna waxaan oran karnaa waxa weeye ama waa cid isyeelyeelaysa ama waa cid aan waddanka dan ka lahayn oo dan gaara uun eeganaysa marka bulshada reer Somaliland waxa aan soo jeedinayaa ayaa waxgaradkeedaba in ay iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo cid kasta oo doonaysa rajadii ummadani lahayd inay sii socoto in ay isku taagaan in nidaamka sharci lagu soo celiyo wax walba inay mudaharaad salmiya isugu soo baxaan in ay xuquuqdooda haddii aanay iyagu ilaashan cid kale oo ilaalinaysa ma jirto waxa kaloo aad iyo aad iyaduna halkan fariin kala doonaya inuu muriyo xisbiga mucaaradka oo ay tahay inuu doorkiisa qaato isla markaana ummaddu rajo badan bay ka filaysaa waxay ka filaysaa in uu ummadda codkeeda gudbiyo dareenkeeda gudbiyo ma aha maalinta commission la isku qabsado in ama maalinta wax doorasho quseeyo oo kaliya meesha waxa khatar ku jira waxa weeye waa dowladnimadii iyo dastuurkii oo dhanba iyo xuquuqdii dadka oo dhan waxaa la doonayaa xisbigaas iyo xisbiyada kaleba in ay isku taagaan ilaalinta sharciga isla markaana ay hor istaagaan damaca aadka iyo aadka u dhagarta badan ee aan meel laynoo wadaynin mustaqbalkeenna madowga iyo godka ku ridaya inay hor istaagaan isla markaana ummaddeenu si uga baaqsato dagaallo sokeeye iyo qalalaase inagoo og in ummadda geeska Afrika maanta uu qaadayo jidkii horumarka iyo badhaadhaha oo kor loo socdo hadday Itoobiya tahay hadday Soomaaliya tahay marka laga reebo Jabuuti oo iyaduna dhibaatada ay la qabaan dadkeedu aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.